السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan, habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, wax kastoo ku tahayba wanaagsan. Kusoo dhawow channelka Surbiyaan channel. Akhyaarta sharafta lagu soo dhawaada channelka Surbiyaan mar labaad. Maanta waxaan rabaa inaan la qaybsado mandaas yar oo siir oo fudud aan u sameeyo insha Allah. Qaabka aan u sameynayo, qaabka aan isugu dirdiray. Hadda ayaan bilaabeynaa insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad videoga daawatid ilaa dhammaad ilaa bilow saa aad u aragtid waxa aan sameynayo. Koobkaas ayaan haystaa waxa aan ku shubanayaa waa bur ama daqiiq adiga koob buuxa iyo koobaan aad u soo buuxin ayaan ku shubtay insha Allah. Waa inta qiyaasta aan aniga maanta rabo inaan taqaanayo aan sameeyo mandaasi ama burka mataqaanayo saliida lagu shiilo insha Allah. Waxa hadda aan inta ku haystaa waxa waaye waa qumbe shiidan waaye oo aad sida burka kale u shiidan laba qaado ayaan ku soo shubtay. waa qumbe shiidan waa qumbaha aad u fiican yahay marka waa kaas hadii qumbe haysatid qumbaha shiidan ayaan ku soo daray laba qaado. waxa aan ku soo darsanayaa hadda waxa waaye sonkorta intii marka adiga aad jeceshahay ayaa isticmaali kartaa insha Allah. aniga waxaan ku daray 3 qaado oo kaliya marka adigu intii marka mataqaanayo dhanka sonkorta aad rabtid ayaa ku darsan kartaa hadii Ilaahay yiraahdo. hadda waxaan ku soo daraa wax yar oo qaadada afkeeda hore ah oo baking powder ah ayaan ku soo daray. kadibna waxaan ku soo darsanaa hadii Ilaahay yiraahdo waa qamir ayadana waa qaadada halfkeeda buuxda qaadada kadib waxaan ku soo darsanayaa vanilla sugar vanilla midka oo xoogaa biyo hada haysto ku darsan kartaa vanilla dhan hadaad haysana waxaa ku darsan kartaa hal shiidan insha Allah. kadib waxaan ku soo daray subag ama butter aan soo dhalaaliyay ayaan ku soo daray kadibna waxaan ku qasayaa caano allaala caanaha marka aad haysatid oo wax yar aad soo qandicisay ayaan ku qasayaa wax biyo ku daray caanahaas aan taqaanayo aan ku xashaa insha Allah. si fiican inaa u xashtid ayaan rabaa hadii Ilaahay yiraahdo. kadib saana ku soo wada insha Allah waa soo qasaa caanaha tartiib inaa ugu dartid farmar hada iskaga dartid waxaa laga yaabaa inuu burka qiyaasti aad haysatay uu ka bato oo aad bur kale u baahatid marka caanaha tartiib ugu shubanaysaa koob halfkiis waxaa laga yaabaa koobka halfkiisa dhan inaan ku qasanin. waa kana hadda saas jilaaca ayuu soo noqday waa soo xashay kulligiis. kadib waxaan sameynaa baxa afka ugu xirayaa adiga ilaa 35 daqiiqo ayaan dhigaa hadii Ilaahay yiraahdo. kadib ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah. after 35 daqiiqo waa kana eerkii ka bixiyay baqolka ka soo saaray wax yaraan dib isugu celiyay. kadib waxaan ka dhigayaa aniga 4 qaybood burkayga qiyaasta intii ahayd waxa u kala jarayaa 4 qaybood bas ayaan ka dhigayaa. burkaaga ay ku xiran tahay hadii uu burkaaga intii aan sameeyo ka badan yahay laga yaabo 6 ilaa meelahaas kuus aad ka dhigtid marka waa kana saana 4 kuus aan ka dhigay intii qiyaasti markii aan sameeyo wax yaraan bur marsaday burka aan marinayna bur badan ma ahan looxaad aan ku looxayo wax yaraan mariyay marka waa kaas akhyaare saana u kala bixinaya hadii Ilaahay yiraahdo. aad inuu mataqaanayo u noqdo culaysna ma la rabo khafiif saa'id inaan ka dhigana ma rabo xoogaa yar si fiican oo tartiib oo isla ag marba geesa u gadinaya waxa marba dhinac u gadinaa waxaan rabaa inuu 4 qoone oo mataqaana oo si isla ag oo ka noqdo oo dhinacna ka kusnaanin dhinacna mataqaana oo khafiif ka noqon marka saasa uga gadina hadda dhinaca mataqaana oo kala bixina insha Allah. kadib waxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa mindidan aan ku jaraaya saas ayaan u jaraaya 4 qaybood ayaan halkii xabo ka dhigaya saas aan u jaraaya insha Allah. waa kaas khafiif saa'id maaha culaysna ma ahan marka kulligood sidan ayaan ka soo wada dhigaya insha Allah. saana aan soo kala bixinaya arkayseen insha Allah. xabadaas example idinku tusay dhamaantood waan soo kala bixiyay kadib waxaan saaray maradan korkeeda ayaan saarsaday waxaan rabaa inaan 10 daqiiqo ama 10 minute aan daayo kadib aan dubo. after 10 daqiiqo saliida ayaan dabka saaraya waan dubayaa marka 10 daqiiqo fiican inaad soo jarjartid ama meel saas oo kale ugu safitid. hadda saliidii ayaan dabka soo saaranaynaa dabka soo saartay marka saliidu inay kululaato ayaa mandaasiga u fiican sababtoo ah hadii saliidaada ay qabowdahay mandaasiga aad dubaysid saliida ayaa ka galaysa marka always mandaasiga waxa fiican saliidiisa inay kugu kulushahay
oona saliidiisa aad ayna u qaboobeen sababta inuu saliid kaa gasho lama rabo. Hadda mandhaasigan wax saliid ah ma geleyso, saliid dhanna ma ka arkaysid, aadna u carfaya, aadna u macaan. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaa mataqaanaa aa ka faa'iidi doontiin simbalkaas yaraa isku dardaray aadkana u fudud waqti badan kaa qaadanaynin. Artay maanta waxaan jeclaystay inaa mandhaasiga sidaas fudud aan u sameeyay aan kala qayb qaato. waa kaasaa tartiibtaas ugu gadinaysaa insha Allah. saliidana iska ilaali saana usoo duduwaa markaa saa inay sheegay saliida zaaid uma qabooba. marka waa kaasaa saana aan kusoo wadaa insha Allah. saana kusoo dhameynaa isagaa mataqaanaa dhexda dhan uu kor u kacaya xoog buu isku kala bixinayaa maal lahaa. marka waa kaasaa hadda waa ka guranaya wax saliid dhan ma kaa cabaayo, xabad saliida ma geleyso, saliida dhan wuu iska daadinaya. tush yaraan saana cabaaraan dhigaa tushoogaata intay kor u wataan kas dhooqaysa wax saliida ma lahaanaya insha Allah. marka waa kaasaa hadda qaybtii labaad ayaan taqaana aan kusoo ridayaa saliida. haddana kale muhiimadda waxay ahayd qof kasta oo garanaya qaabka loo dabo, laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd waxa aan isku dardaray inay aragtaan. waxaan rajeynayaa inay arkayseen waxyaabihii aan mataqaanaa isku dardarayay kana faa'iideysan doontaan insha Allah. waa kaasaa mandhaasiga caruurta iska jecel yihiin, ciyaalka aad u jecel yihiin, waa wax yar oo mataqaanaa maasha Allah marka isagoon ukun lagu darin oo saas mataqaanaa maasha Allah. ukuntana waa ku darsan kartaa, dadka qaar ukun ku daro, haddaa rabto ukun waa ku darsan kartaa, kaana wax ukun dhan ma ku darin. saa arkayseen ukun ma isticmaalin, haddana saasay tahay maasha Allah. kaala iska arag waaye quruxuu noqonayaa. marka isagoo bilaa ukun waa samaysan kartaa, asagoo ukun lehna waa samaysan kartaa. ukunta jeceshahay ukun waa ku darsan kartaa. marka aniga ukun ma ku dari badanaa, saas ayaa u sameeyay. waa kaasaa marka dhexda dhan waa eber, intaa dhexda kala jirtid wax waa ku guran kartaa. alool dhan ma yeelanayo, burbur dhan hoos ma ka yeelanayo, ceyr ma ku dhex jiro. maasha Allah waa aad iyo aad u caraf badan yahay. marka maanta intaasaan idinla qaybsanahay walaalaheyga insha Allah. waxaan rajeynayaa inaa mataqaanaa aa ka hesheen qaabka fudud aan u diyaariyay mandhaasiga ama burka saliida lagu shiilo. waa kaasaa insha Allah. intii ugu dambeysay aamanaya haddii Ilaahay yiraahdo maanta dhan waa in tusa haddaan dhaho kaamirada dheeraanayso. marka waxaan rajeynayaa inaan soo gaagaabiyo. hadda kan oo kale aad oo kor ugu soo booday, marka geesiyo ka cadiya wax yaraasaan aan dhinac ugu qabanaa insha Allah inuu wax yar oo dhinacaas ka casaado. waayo markuu kor u boodo kale ma casaanayo, dhinacyadu waxaa ka cadaan kugu bisiliyahay macna malaha. hadda saa aragtid waa ka bixin kartaa, haddii kalena tartiib tartiiba marba ugu gadinaya. markii intuu kaa guban lahaa waa ka bixinaya. akhyaarteeda waa soo dhameeyay. waa kaasaa wax dhexdiisa ku jira malahan, dhexdiisa dhan waa eber. waa kana mandhaasigeena saan quruxda badan ayuu inoogu soo baxay. aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiina saa ii daawatiin ee ila socotiin. walaalaha cusub ee igu soo biiro waxaan leeyahay soo dhawaada channelkiina waaye. maalmahan xoogaa waa idka caajis, laakiin insha Allah waa soo laaban doonaa biidnillah. aad iyo aad idin soo dhaweynaa dhammaantiina. walaalihii hore nala joogay waxaan leeyahay nala jooga weligiin oo ha naga tegin. haddii aan nagu cusub tahayna subscribe iyo thumbs up ka naga ilaawin. assalaamu calaykum waraxmatullah.